dagaaladii ugu waaweynaa ee saxaabadu gashay waxaa ka mid ah xarb alqaadisiya ciraaq meeshan la yidhaahdo ay ku taallaa ciraaq waxaa inteeda badan haystay Persia dowladdii Iiraan baa ka talin jirtay dee caasimadoodii madaa'in waa Baqdaad dhinaceedaba kama foga maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas Iiraanta ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalka qaadisiya dhowr boqol oo kun oo gaala iyo 30 kun oo saxaaba ah ay surtaagan iyo intii la socotay saxaabada waxaa hogaaminaya 10 المبشرين كامدة سعد بن أبي وقاص بعيدا كوطا قال هذا كلنا واحد هجامني إن رستم لا يرادو جانا ندودي وويناي لقدم بيه كامدة مركان رستم وحر رباب اللي ما كان منتل يسيد يفكر يعني إنه وجاده وسعد ويديستي إنه الصادره عد وذا هذا البلو نحمره نبى الله دري وسوء عليه متكلم بلي صادر والله صدح نبى كل بمدو تجي صدح الصحابي أي كل بمدو تجي مثلا مت كم يدون هذين سوقنا ربعي بن عامر با كم ده نكن روح الربيين هنش بيو الصحابة التنوط المام وحن سو صاري قاتش أي نقالة دون هديتين نقالة بحيو مركا سريرتي بقرطوية ده مالا دقي دبتنا ريد كاربتسكا أيالا وراي نولادو بلادن نكن مسلمين تكسعودا فارس يرو قابن بوطا waan intaasoo bilood dagaal ku soo jiray deenin ay ka muuqato adduun iyo daldalaalkii maaha Rabi' ibn Amr oo faras yaro gaaban wata soo baxay dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo dul eriyay faraskiisii kama degine hay culimada taariikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka mid u faraska ku xidhay dabeetana uu ka soo dhaadhaco xaq uu soo dhaca waxay yiraahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adoo hubsita looma tago wuxuu ku yiri boqorku isaga ay yeedhay anigu uma rabine haddaan rabtaana sidaydan baan ugu tagayaa haddaydan rabina waa iska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxa la yiri Rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinka ay yeedhay ma hubkaygaan gelaya ama waa iska noqonaya soo daayay buu ku yiri ma hubkiisa soo daayay isagoo wixiisi tuu soo galay su'aal baa la weydiiyay markaa ma jaa bikum war maxay idin keenay abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya ka soo maxaa idin keenay saxari uga timaade wuxuu ugu jawaabay الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلهي بأن سوابحيي إن نكسر ردتك عدي ودونه الضومة هيس الضون سنة يانو إلهي الضومة ورقنه وحنوسع عن أبو لين البنادم كحرينه مخلوق خلينا وأدون سن إلهي يقول إن يدتكو الضومة ونقضان ودتكو حرية هلان بحنوسع عن أبو لي عبادة إلهي قاركو نقط وحنو كالوسع عن أبو لي إن ندتك دوني دا عريري قادة كسر رب اللي عيدا وصاره هذا وان كان كاربتية دا عصر دكتايا عرشي قوين كفر ديا أيوه حكولة عريري كاساريا عريري هو قلبي كان دونكو قيمة وما فردية وين كاربت يدني وحن كانوا فردية وين قيمة وما سمينش وحن كلفي عن عدالة دي مارتي التوحيد كيسي الدين تيسي وحا استاكلا فيه بركا وحو ليه دونك هو رباطكو قبطاي عريري كان دون من كاب بحنا يا وحن كو صار يا محي بلع عدو كان كو جيني يا بولي وحن كلو سعود ابو الديمها الظلم قودا إنان كاك حينو إسلام كعدالة دي سكو صار يعني موقف كان يوحو الصورية نينك كان ولو ميشن نينك حول بدن وكا بدبد كادويا كغفي عن وتاغن يحي انه معتز بالدين يحي دينتي سو وخو دغان تاينان و جيرين انه رميسن يحي تاس waxay kan sanaysaa inuu qofkan diintiisa ilaashado ilaahay wuxuu wuxuuna leeyahay hatta hadii sida kale dhan la idin ka xog bato wala tahinu wala tahzanu wa antum al'alawna in kuntum mu'minin war hal liidanina baa la yiraahdaa murugoonina idinka koreeya hadii iimaan u jiro dad rumaysan tahay rabbiga ay ku xidhan tahay ada koreeya sallallahu alayhi wa sallam oo saxaabadan reer Makka ah nabi Muhammad alayhi salatu wa salam rabbi yasay muuqdeena
markii Bayt al-Maqdis muslimiintu ay furteen Bayt al-Maqdis ninka furanayay ciidankaasna nin kale oo 10 al-mubashiriin ah hogaaminayay Ubaydah ibn al-Jarrah ayaa ciidamada watay dabeetana qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yiraahdeen sharti ah furaha sulx baanu galeynaa saasaanu kula heshiinaynaa laakiin furaha wuxuun baanu u dhiibaynaa amiirul mu'miniinkiinu ha yimaado isagaanu fura ku wareejinaynaa sidii buu ku soo baxay Abu Ubayda Umar buu la hadlay wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaalay Umar wuu soo baxay wuxuu rabaa furihii Bayt al-Maqdis inuu la wareego meeshana isaga furaha loo dhiibo mucaahadadii la galayna sidaasi ay ku hirgasho وسو سعدي مركو ماشي إن يروسو شري أيوه صامر يدل دير يروب هلا يروب ميدانا دبتنا دابدي وفوشنين تعمر كده دقي والله بدي كبودنا الله بحي أيوه الله بدي كبودنا هلكم كسوقات نيف كيسينا سوه جامي الله بدي ناس كسر حصادي أبو عبيدة يعيد ما دي مسلمين ترجي سود وين يكهر يمو أبو عبيدة وحولي عمرو ما متشعلن ما يصرني أن أهل البلد استشرفوك حديثك حاكم وريني مقالة ددتك دي مدح دينا يكو أركان سيدان أدقو نكن فايداني عقار دوبادا كلها إن لغو أركو ما نشعلي بولي عمر رأي يجي ورد بصدق أدقى عيدنا أوه لو يقول هذا غيرك بيري أبا عبيدة waxaan jeclaan lahaa mid aan adiga ahayn inuu yiraahdo Abu Ubayd adiga waa ka xishoonaya buu leeyahay laakiin waan ciqaabi lahaa nin kale oo aan adiga ahayn inuu yahay marka waa ka xumay buu leeyahay law ghayruka qaalaha mid aan adiga ahayn ma warkaas ka soo baxa buu leeyahay dabeetana Umar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii Abu Ubayd waa ogiyay laakiin wuxuu yara raboon isagoo amiirul muuminiin ku muuqda amiirul muuminiin xagga dharka iyo haybada inuu meesha yimaado لكن عمر روحه كليه وحانو هين إن كنا ذل قوم داد الدل يسمبانو هين إلهي الدين تنبو نقو عزة يضدنا قدق يقولي مركانو عرب هين دول كي يجوغني داد الدل يسمبانو هين جرني لكن إلهي وحو نقو عزة ينقو شرفي دين تطن هدانو كرا دي نبولي شرفت ميلان دين تيضا هين إلهي وانا ذلينيا إلهي الدين بو نقو شرفي waxaan diinahayn hadaanu sharaf ka raadina waa duloobayna waxaan uga dan leenahay waxaan uga dan leenahay qofku mu'taz bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidbidkana adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taas waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xajisto ilaahay isagoo nabi maxamed la hadlaya alayhi salaatu wasalaam ومن ورائه صحابة الله هدليا وحليلي فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إلهي وحولي حجسو فاستمسك بالذي وحي إليك وحي لغوسو وحي يدي حجسو وايو جد صحبات كسوغانتا إبا إلهي لي جد قمان بات كتاغانتا وإنه لذكر لك ولقومك قرآن كاسي وحي غاية دين تالغوسو دجينا شرف بوكوية هاي أديك يطلقا بابا إلهي لي إلهينا ويدين دونا مركا وحي ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin ayabtaghuna 'indahum al-'izza fa inna al-'izzata lillahi jami'a waxalani shayga koowaad waxa weeyaan inaynu qurbadan kaga baxno wixii ahlu kitaabkii hore ilaahay ku tilmaamay inay kaga baxayeen inuu kaga baxno wixii saxaabadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaga baxday inaynu muctaz ku ahaano dad ku faanaya waan qarsanaynin diinta tar inaynu noqaano